agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland uu wehelinayo barasaabka gobolka Togdheer iyo sidoo kale xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa maanta waxay kormeer ku tageen garoonka kubadda cagta ee Alamsey Stadium ee magaalada Burco kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday dib u habeyn iyo dayactir lagu dhigayo roogga cagaaran. Mas'uuliyiintan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo sidoo kale kuwan maamulka gobolka Togdheer ayaa markay halkaasi gaadheen waxay indheeyeen garoonka iyo sidoo kale meelaha kala duwan ee wax laga qabtay waxna gorintiba halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay garoonkan iyo sidoo kale dayactirada kala duwan ee lagu sameeyay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer xildhibaan Rashiid Farax iyo sidoo kale xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco. aad iyo aad muhiim ugu ah labada shirkadood oo iyaguna sidii ay shaqada u qabteen aan ugu mahad celinayno haddaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxdaba joogaan ka sheekareyn doonaan dhamaystirkooda iyo barasaabka aad iyo aad u mudan oo aad iyo aad isaguna shaqo weyn garoonkan Alamsey Stadium iyo gobolka Togdheerba dhalinyaradooda gacan naga siiyay. waxaan kormeer ku joognaa garoonkii Alamsey Stadium wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxda wasaaradda ciyaaraha iyo barasaabka iyo barasaab ku-xigeenka iyo anagoo ah xildhibaanada dabagalka bilicda gobolka degmada waxa aan runtii aad iyo aad maanta kormeer u soo gabagabeynay garoonka oo laba shirkadood oo Habboon iyo Goljanno ay labadii qandaraas runtii loo diray ama ay ku guuleysteen ay si wacan oo sharaf leh uga soo baxeen labada shirkadoodba oo ah dhigistii roogga iyo dhismihii dayactirka garoonka. waxaan gudoomiyay ama agaasimo guud runtii idinku sheegaynaa inta ay shaqadu socotay waxaan ku haynay kormeer iyo runtii talo labada shirkadoodba ay si degdeg ah si ay u helaan dhalinyaradu baahidooda ka xiran loogu furo garoonkooda ayaan intaaba ku wadnay. waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa guusha iyo maanta arinta ay labada shirkadoodba ku guuleysay. wajigii labaad maalintii ka dambeysay halkan aanu taagnayn ee madaxweynuhu inoogu yimi halkan waxaa barasaabka u gobolka degmadii hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay wasaaradda dhammaantiin aan codsanayn madaxweynuhu inoo wajigii labaad inoo dhammaystiro iyo wasaaradduba waa lagu mahadnaqaynaa madaxweynaha in ballanqaadkii maalinta halkan uu ballanqaaday barasaabka gobolka Togdheer xamse maxamed cabdi halkan ku guddoonsiiyey warqadii wixii ku kacay in madaxweynuhu ballanqaadkii sidiisa u fuliyey oo maanta alxamdulilah madaxweynihii oo halkan inoogu iman doona in uu dhammaystiran yahay. geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Khaawi iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxaanay tilmaameen in dayactirka garoonka laga gaadhay guul isqabsi lahayn oo nadiif ah soo ciyaarihii lagu yaqaanay iyo xirfadii iyo kartidii lagu yaqaanay gobolka Togdheer ee mar walba ay ku guuleysan jireen insha Allah iyagana way gareeynaa. wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxay idin ballan qaadaysaa in sida ugu dhaqsaha badan koobabka kala duwanaa la idin bilaabi doono kii degmooyinka kii seereeda seerbida dhammaantood laga qayb qaadan doono. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha runtii oo iyaduna dadaal fara badan gelisay sidii ay hawshan u qabsoomi lahayd hadday tahay madaxda wasaaradda iyo hadday tahay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Kaisi Yuusuf Cilmi aad iyo aad baa mahadsantiin. waxaan ilaahay ka rajaynayaa biidinlaahi baari in garoonkan oo uu markii hore ee dhismihiisa u dhisayay inoo dhagax dhigay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaaji Muuse Biixi Cabdi uu maantana safarkiisan uu inoogu iman doono 15 bisha oo aan dadweynaha gobolka Togdheer u marinaya hawada inay si weyn uga qayb qaataan soo dhaweynta madaxweynaha. isku soo wada xoriyo dayactirkan ballaaran ee lagu sameeyay garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco ayaa kaalin muhiim ah ka qaadanaya horumarka ciyaaraha ee dhalinyarada gobolka Togdheer waxaana la filayaa inuu xadhiga ka jaro garoonkani madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku soo aadan magaalada Burco. وخالد بكيلة ورarka fogaana ragga xorta Star TV Burco.